raxmadda dunida. barnaamijkan raxmadda dunida ayaan waxaan diradda ku saaraynaa dhaqamadii iyo tusaalooyinkii ugu wanaagsanaa ee nebigeena Mustafa sallallahu calayhi wasallam, waayo waxa uu ahaa jaamacaddii oo qof ah, tusaalihii ugu wanaagsanaa oo qof ah, barbaarintii ugu cajiibsanayd oo qof ah, raxmaddii dunida oo qof ah, iyo caalamkii oo dhan oo qof ah. waxaana ugu talagalnay in ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan kuwa ku hadla afka Soomaaliga, inay wax badan ka ogaadaan tusaalahan ugu wanaagsan oo ah raxmaddii dunida Mustafa sallallahu calayhi wasallam. waxaan doonaynaa inaan iswaafajino marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray Mustafa sallallahu calayhi wasallam intii uu noolaa, iyo marxaladaha aan maanta marayno, casrigii uu isaga noolaa iyo casrigan aan haatan nool nahay annaga, oo markaasi gundhig uga dhigayna qur-aanka, axaadiista nebiga sallallahu calayhi wasallam, waxyaabihii laga soo wariyey saxaabadii Ilaahay ha ka raali noqdee, iyo culimmadii kala duwanaa ee wanaagsanaa, kuwii hore iyo kuwa maanta. waxaana rajaynaynaa in barnaamijkan raxmadda dunida oo ah barnaamij taxane ah inaad wax badan aad ka faa'iidi doonto insha Allah.